الرحيم حسن دوحو لاب صالح سو دhow ugu soo martay qaadanaa hadii aan nahay bahda Buti TV barnaamijkan curriculum oo ugu talagalay inaan kaga faaloono fankaaga suugaantaada iyo aragtidaada guudba ku soo dhawow mar koobaad iyo mar labaadba aad baan u dhawahay abwaan Soomaaliyeed baa tahay fan balaaran baad leedahay bal fankaaga nooga waran sida uu ku bilaabmay iyo halka uu socdo aad baad mahadsan tahay 10 sanadood ugu dambeysay fanka ku jiray وجران هيسان سميي وفنانين كلا دون قادان حدوقها وبنادين iyo fanaaniin kale waxa kale oo jira inaan leeyahay maansuuyi fara badan oo dhinacyada tahriibka baraarujinta bulshada qabyaalada dhiirigelinta dhalinyarada waxaas oo dhan ka hadla marka waa aduu fanku aniga markii hore waxaan ku soo galay waxaan xiiseynayay ugu beernaa marka intii aan ku jiray waxbaan ku soo kordhiyey xagga suugaanta waxaa laga yaabaa in aan kooxda xidigoo kale ay fanka casriga ah noqdeen xidigo ka muuqda xidigaha kale Soomaalida qayb baan ka ahaa kulay dadaaladii ay halka ku soo gaareen waxaan ahaa shakhsi iska jecel fanku badiga dad waxaa jira hideysta reerkiina wax gabya ama heesa ama abwaanaba ama fanaanaba ku jira bay fanaan kuma jirin laakiin awogay Maxamed Nuur Faahiye Liibaan أنا أسهل محمد تور ورجلي ربنا حريستي شناها كورابي آمين يا أبوه يبى جامعة تقول كيف يشتري صح أو ده إنك استوبرجع أنا يشترين عشرة ذو يسي ديو يوحلا غيرها بقى حدنا لكن والله هيايو وحكم إذا أبوه ولا شيء واحد تكتي حاجة نظري درا دبي إريا ده كدمنا دلاي كتكتي مركه دلا يدو يسوسو بدشي أو حوجا أيتي مدة قبل وتريح حكم إذا هاكش قيسور هيرها قتيلة وهذا قاش لسه أبوك بابا خطر هاي مركا حسنو وارنو سوغان تاد وسوغان بلارن wax badan oo ku soo kordhisay fanka Soomaalida adigu markii aad yareed fanka xiiseynaysay intii aanad fanaannimadaadu ay soo shaax bixin ayaad ku dabadeeyeen jirtay bal wax iska dhigeysan jiray Cabdi Taaliili iyo Axmed Nuugu iyo manad u jeclaa marka heesaha la eego laakiin gabayada maansada gabayada waxaan xiiseyn jiray Timacad oo kale waan xiiseyn jiray Yamyam oo kale Adraawi ragii waaweynaaye macnaha u yaalay suugaanta waxaad ka xasuustaa taariikhdii fankii Adraawi ama Timacad waxyaabaha ku Adraawi waa mid ka mid ah dadka maanta ugu magac weyn leh suugaanyahanka Soomaalida waa sax ilaahay cimriga iyo caafimaadka ha u barakeeyo aragti ahaan halka uu ka hadlo waxa weeyaan aragti ballaaran oo qof maskaxdu kala baxday ballaaratay dadkan aan la aragtiyahay marka Adraawi waa qaamuus dadka Soomaaliyeed leeyihiin waa maktabad uguma soo koobi karo erey ama laba erey maansadiis ku ballaaran uguma soo koobi karo anu soo noqono fankaaga Xasan Dhuxul Laab Saalax xidigaha geeska qayb weyn baad ka qaadatay waxyaabo badan baad u qortay marxalado badan bay soo mareen maanta halkii joogaan fanka xidigaha geeska iyo fanka Hargeysa maanta halkuu joogaan damashii ugu wanaagsaneed masleeda maxaa ka marxaatiyo wada caan safar badan oo Soomaalida gilgilina way sameeyeen sax qofkuna nolosha siyaabo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan isagoo iska fanaan hadana wax kale ka shaqeyn karaa wax baran karaa marka xidiguhu maanta gulbay ka joogaan mar baa jirta aan qofna qof garanay mar baa jirta aan heesaha qaadan geedkan aan gaarin mar baa jirtay magaca xidigaha geesku aanu guri iyo gobol iyo geed midna gaarin sax Xasan Dhuxul Laab Saalax maansooyinkaaga maansooyin badan oo waxaa ku jira dhiirigelina wadaniyada wax baad ka qortay heesa badan baad ka samaysay wadaniyada Soomaaliland maanta ka taagan say kula muuqataa أنا هرت وداني ما أنا مركز لينا عند ودانيات وأنا
hantidii ugu weyn aan leeyahay waxa weeyaan dalkayga صح dadkaygu hagaagaa kasii wanaagsan صح waxyaabaha aan ka hadleen ku baraarujiyaa waa in wax wanaagsanaadaan marka bulsho wanaagsan la helaa ayaa dal wanaagsan la heli karaa marka la helo bulsho caafimaad qabta oo aqoon ahaan dhisan oo horumar ahaan dhisan ayaa la heli karaa bulsho jahli iyo dib u dhac ka bad qabta marka dhiirigelinta iyo maansooyinkaygu waxay u badan yihiin in bulshada dareenkeeda la hadlo هو تصالين ها صح لكن حسنو حاتري مركب bulsho fiican la helo ayaa dal fiican la helaa miyana la oran kareyn marka dawlad fiican la helo ayaa bulsho fiican la helaa saameyn intee leeg bay dawladaha fiican ku yeeshaan si loo abuuro bulsho fiican horta dawladnimadu dadkay ka timaadaa صح oo haddii aan xisbi wanaagsan jirin dee noloshan dimuqraadiga ah iyo wadamada dimuqraadiga ah haddii aan xisbi wanaagsan jirin dawlad wanaagsan ma iman karto صح waayo dawladdu xisbi bay ka timaadaa صح xisbiguna shacabku ka yimaadaa marka haddaan shacab muwaadiniina oo qarannimada dalkooda ilaalintiisa u soo jeedaan la helin oo wadaniyada ku baraarugsan dawlad fiican lama heli karo صح marka xilli walba waxaad xoog saaraysaa inay dadka horta bulshadu wanaagsanaato ha bulshadu day wanaagsanaato waxa kale oo hagaagaya صح dad wanaagsan baa la helayaa dal wanaagsan baa la helayaa aqoon wanaagsan baa la helayaa xasano Soomaalidu sida dawladaha kale ee Afrikada Soomaaliland ha noqoto Soomaaliya ha noqoto Djibouti ha noqoto ummadahan geeska ku nool oo dhan ha noqdaan ama Afrikada oo dhanba waa dad la gumeystay isticmaar weyn baa soo gaadhay tacliinta ay dhigtaani badiga waa tacliin gaalaad oo ka soo lagu baro dad badan oo gaalada wax soo taray adigu si kula muuqata maanta marka la leeyahay dib u curasho dhinaca Afrikada dhinaca Soomaalida adduunku maanta sida uu heerka uu taagan yahay qofka Soomaaligu si uu dib ugu curto uu dhaqankiisa uga tagin uu dawlad fiican iyo bulsho fiican u sameyn karo tacliintu door intee leeg bay ka qaadataa baad u malayn sideena loo heli karaa horta tacliintu waa furaha nolosha ee wax walba صح ee dalka ee dadka ee guusha ee dhala waa furaha صح marka laga hadlayo marka ummad gumaysigu ku dhaco صح inay gumaysiga iska dul qaadaa way fududahay waayo hal cadow bay leedahay oo gumaysi la yidhaah laakiin marka ummaddu dhexdeeda furfuranto waa markay inay dhinac u wada jeesataa adagta صح Soomaalidu iyadoo Soomaaliya markii gumaystuhu dhulkeeda yimiday xayndaabiyada iyo xuduudaha kala sooca uu kala sameeyay laba gobol oo dhulkii Soomaalida kamid ah waxa lagu kala daray dalalka dariska halka intii kalena saddex loo qaybiyay labada gobol ee dhulkii Soomaalida laga jaray laguna kala daray Kenya iyo Ethiopia maanta waa labada gobol ee ugu khayraadka badan la wadamada geeska halka waxa ka cad in istiraatiijiyad iyo qorshe cadaan ah uu gumaystuhu kala ahaa markii horeba صح muddo 80 sanadood ka bacdi kontumeeyadii ku beeray ayay Soomaalidu baraarugtay waqtiga dhulkeeda la qaybiyay 80 sanadood ama 70 sanadood ka bacdi baraarug صح waxay ku baraarugtay isla doonashada shan Soomaaliyeed markaas ay hanbaabirtay markaas ay toostay iyadoo baaridoon iyo geedu galisa in isla yeesho shan Soomaaliyeed oo calan qura leh haddaba maskixiyan marka dib ugu noqotay isweydiiso maxaa diiday in shan Soomaaliyeed oo calan qura leh la helo waxa ku soo baxaysa aragtidaas inay shaqayn weydo inay sabab u ahayd dadka af iyo dhaqan iyo isriye diin walaagta Soomaalida ah oo iska indhatiriyay xuduudihii iyo xeerarkii caalamiga ah dhulkooda lagu qaybqaybiyay xayndaabiyada dhulka Soomaalida loo kala sameeyay waa wax kaliya tii saacad ugu hor yimiday in la isla helo shan Soomaaliyeed halka waxa ka cad in maanta aanu jirin dhul Soomaaliyeed oo shan ah balse dad Soomaaliyeed oo shan u qaybsan jiraan صح waxa marka la doonayo Soomaalida in la mideeyo siyaabo badan baa lagu mideyn karaa siyaasad baa lagu mideyn karaa way socon weydo adiga sheegay dhaqan ahaan waa lagu mideyn karaa maanta qof kasta oo Soomaaliya adiga uu ku garanaya laab saalax hadaad jigjiga ka dhaxtiraa waa la garanaya marka anu waxaan isleeyahay mideynta ay Soomaalidu ay ku dadaasho miinan hayn tan fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka inta ay raadinayso mideyn siyaasadeed iyo xuduudihii la kala xidhay iyo waxyaabahan maanta ay awood ay u haynaysaa uga baxdo miinan habooneyn in awood la dul saaro in suugaan fan dhaqan Soomaaliyeed oo tayala in la beero Soomaalidu afay ku midaysan tahay صح waxa kale ee qoomiyadaha kale geeska degaa iskaga dhowday waa af صح hadda ma garatay laakiin waxa cadaynan aanan wada socon oo ismi jaxaabinta iyo isku muuqashada dhexdooda taala صح ee uu kala dhuumashada shisheeyo ay qayb ka tahay inaan waxba ku wada socon markaan waxaan aaminsan hadii Soomaalidu wada socon kari weeday iyadoo kala socoto qorshe guud ay ku wada socoto ma yeelan kartaa صح imika waxa jira geeska
duufaanaya dabaylo siyaasadeed baa ka jira marka aan waxaan aaminsanahay intay Soomaalidu ku midaysan tahay af kale ee dhaqan kale ee diinta leh in horta la adkeeyo muhiimaha siyaasaddu sidoo ina ka geerisa ku nool iyo ka jigjiga ku nool iyo ka Djibouti ku nool iyagoo maamulkooda dawladnimo iyo systemkoodu uu kala duwan yahay ayaa haddana wada dhalasho iyo dhiig iyo dhaqan ka dhaxayaade sidaas oo kale bay Hargeysa Muqdisho uga dhaxayaan Soomaalinimaduna ma aha hal canan wada hoosatan in Djibouti halkeeda ku badbaado Somaliland halkeeda ku badbaado dawlado Soomaaliya halkeeda ku badbaado la helo maadaama aanay jirin wax lagu wada socdo iyo wax la isku raacsan yahay oo jiilasha dambe mustaqbalkoodii duulaan lagu yahay oo hoggaanka siyaasiyiinta dadka hor jooga imika yihiin kuwa aan dhinacna woodi waxay ku heshiiyeen inaan heshiin صح heshiis waxay ku yihiin inaan heshiin Somaliland baan imanaya Somaliland amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo xasiloonideedu ma aha wax ka yimid dibadda oo wax dhexdeeda ka yimid oo wax dadkeedu keeneen hadda ma garatay inkastoo 28 sanadood ay jirtay Somaliland sidii wax la doonayay aanay u qabsoomin haddana guul weyn bay joogtaa صح hadda ma garatay Soomaaliya dhibta ka taaganna Ilaahay ka dulqaadan leh amiin Djiboutina nabadgelyadeeda Ilaahay u siyaadayaan leh amiin kilalka iyo geelsana kilku waa tantay adiga jigjiga ka degay dhalinyaradu waxay fursad u helayaan inay wax bartaan صح waayo waxay helaan jaamacad bilaash iyo iskuulad bilaash laakiin haddana waxaa jirta in dad fara badan oo Highlanders oo Ethiopia kale ka yimid ay jigjiga ku soo badanayaan oo inaka albaabka ka shaqeynaya inta shaqo hoosaadka dadka haya waxay u bateen Ethiopiankii kale صح marka haddii systemka dawladnimo Ethiopia isbedelo صح oo la yiraahdo nin waliba halku joogo ka codeynaya khatar bay ku tahay Soomaalida geeska صح Soomaalidan jigjiga iyo walaalaheed khatar bay ku tahay shan hogaanshan Soomaaliyeed oo imika isku imanaya oo wax ka arrinsanayana ma jiraan صح hadda ma garatay marka in dadku aqoon ahaan ay bislaadaan baa muhiim ah kama hadlayo siday imika Soomaalidu u nooshahay maxaa dhacaya waxa muhiim ah in laga hadlo warkoodka sanadood ama 40 sanadood soo socota mustaqbalka inaka Soomaaliyeed muxuu noqon doonaa ma laga yaabaa inuu dhulkii awooyaashii iyo ayeyaashii oo labadeena oo kala abaad inay berito la jiilashaasi marti iyo magan uga noqdaan ka shaqaysigiisa iyo ku noolaashiisa cid kale waayo dadka maanta siyaasadda jooga dhaxal wanaagsan iyo ifafaale wanaagsan uga meeytay maalmo qabaadeen jidkeedina ma hayaan hadda ma garatay sida markay tahay dhalinyaro bisil baa loo baahan yahay sida markay tahay waxa loo baahan yahay dad aqoon ahaan iyo asluub lahaanshaha dalkoodu wax walba kala weyn yahay aan ku warramo marna qofku dibaduu tagaayo dalxiisu noqda marna qaxootigu noqda labadaas way kala qiimo badan yihiin hadda ma garatay xorriyaduna waa hantida ugu weyn qofku bini'aadamku heli karo heli karo hadda ma garatay marka qorshayaasha geesku Soomaalida dhulkeeda saameyn buu ku yeelanayaa Soomaalida dhulkeeda saameyn xoog buu ku yeelanayaa waayo isdhexgal baa jira in geeska laga wado isdhexgalka laba faktor waaweyn baa loo kala saaraa waxa weeyaan mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale ka siyaasiga ah wuxuu meesha ka saaraya xuquuqihii masiiriga ahaa ee dal madax banaan lahaayeen oo dhan صح ka dhaqaaluhuna wuxuu abuurayaa in la wadaago khayraadka noocyadiisa kala duwan sida beeraha badaha dekedaha haddii isdhexgalkaasi hirgalo Soomaalida khatar buu ku yahay labadaas si loo isku waafajin hadaba de waxay ku xirantay siyaasiyiin sida loo fahansan yahay cidda wadataa waa cidda fahansantay markasta isdhexgalkuna wuxuu faa'iido u yahay cidda tirada badan leh ee aqoonta leh ee awoodda leh dimuqraadiyadda sidaayba inta badan uba kulliba dadka kala hagaysa saddexda Soomaalidu midna ma leh waayo Israa'iil carabta kale waxay ku balans garaysaa aqoon iyo dhaqaale iyo awood Soomaalidu inta midna ma leh marka isdhexgalka geeska ka socda maqli doontaan dhawaan Soomaalidu wuxuu yahay Soomaalida u dal صح laakiin xasanow anagoo taasi raacayna haddana waxaa jirta taariikh baa jirta Soomaalidu taariikh bay leedahay taariikh markaan leeyahay taariikh waxaa jirta dhibaatooyin baa soo kala gaaray Soomaalida afkan namideynaya iyo dhaqanka namideynaya iyo diintan namideynaya marka laga yimaado dhibaatooyin baa dhacay dhibaatooyinkii weli lama dhayin ma kula tahay maanta marka lagu soo noqdo Hargeysa iyo Xamar xaaladda ka taagan iyo xiriirkan lagu heshiiyay inaanan la heshiin idinka ka soo hadlaysa ma la oran karaa ana waxaan u jeedaa dhaqanka siyaasiga Soomaaliyeed ayaa ku horjeeda ayaa heshiisku ayna la heshiinba صح laakiin markaan u soo noqono arrinka Soomaaliya iyo Somaliland
somaliland maanta ka timiday waa dal doonaya in la aqoonsanaado waa dal maanta taagan oon isku filannahay oo soomaalida uma baahnin ma kula tahay adigu soomaalida shishe Soomaaliya haddii ay aqoonsanaan lahayd waxyaabaha ay maanta tabanayaan reer Somaliland in ay Somaliland goonigan ay u baxday aynan u baxay ma kula tahay seedaad u aragtaa arrinkaas seedaad u aragtaa horta 30 sanadood way kala dhusheendii way kala luusheen waaro oo iga mid baad tahay kaamidii aad taagnay wixii kaga lumay ayaa ka badan hadda ma garatay wixii istiri lahaayeen iska gaashanaya oo kala madax banaan ayaa meesha ka baxay صح nabadgelyada iyo midnimadana waxaan aaminsanahay in nabadgelyadu muhiim tahay hadda ma garatay صح dadku markay qulubta ka midaysan yihiin baa midnimo la helaa صح laakiin dad qulubta ka qaybsan midnimadoodu waxba kuma taalo taa macnaheedu ma aha inaan diidanahay in la helo dad dhinac u wada jeeda laakiin waaban la helay oo faragelin siyaasadeed oo shisheeya imika xagga walaalahayna Soomaaliya aad ugu badan taasi waxay diidaysaa in dhinac la isku raaco laakiin anigu waxaan aaminsanahay inaan ka Somalilanderka ahay ee Hargeysa ku nool inuu jid iyo daw u leeyahay inuu xuquuqdiisa si madax banaan u helo 30 sanadood inuu lugta ugu xidhnaato ma aaminsan صح aan ku soo noqono fankaagii xasanow maansooyin badan baa tirisay aabaha cadweeyaan la guurso maxaad ku keentay darajo baraarug aan doonina nooga yar faalooto maansadan la guurso maxaad ku keentay qornaantii haween badan ay la dhaceen anigu baan kamid ah iyo aragtidaad ka qabta haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka si guudba adu ma dadka la guurso maxaad ku keentay maansada waan ka helaa laakiin isla guursiga kale kama helo in gabdhaha la guursada kama helo in la ila guursadana kama helo horta hadday gabadhi ku tiraahdo waan gar qaata صح been bay ku sheegtay hadday ku tiraahdo ma hinaasana been bay ku sheegtay marka dumarkaad kala simantahay la guurso maxaad ku keentay waxaad maanso aan sameeyay muddo beri hore bas ahaan waxay ka hadlaysaa gabadh la guursaday Hargeysaan ku kulanay way iga sheekaysay ingiriiskii deganeyd qisadeeda inaad haysaa laga yaabaa dadkuna ay hayaan marka waxaa leedahay gabadh aduu ka hadlaysaa la hadlaysan ninkeedii la guursaday iyo ninkii gabadhii la guursaday iyo nafteeda saddexdaa qaybood ka hadlaysa haddaan yar ka dulmar waxaa leedahay ka sheeday guuxa jooji istiijaadoo gax taagan ilmada indhahaaga keedso dhibtiyo cadhadaada kaadso xiska iyo aqligaaga ka kaasho waqtiga kakan iyo duruufta lur maaha inaad kuftahay kaskaabnidu waa habaaska kobtaad ku dhacdo durnaato hortaa dumar u kadeedin kadmo uu kadab hankaaray raggii waa kala xmadhaansha kunkii boqol baa hagaagsan waa 10%. haddii guur lagu kadeedmo haddii guri lagu kashkaasho haddii kanba lagu hungoobo haddii kobta muranku yaallo kabadda cayeed ku soo habay haddaad kafaar la kaartay kawaanka haddaad dul taalo kubkaa jabay maanta qaado rajada kabashada ku naawi giftiya nabarrada korkaaga adigu dhahay waad kartahay naftayda ay barakadeedka adigu maasadaas ah صح xasanow reernimada maxaad ka qabtaa waxaan dhageystay aduu ku wareysanayo Cabdisalaam Hirin qabyaalada ka wareysanayo waxaad samaysay hees la yiraahdo halkaagu hadha furay hebel reernimada maxay tartaa maxaa laga faa'iidaa Soomaalidu maxay uga hadhalaada horta reernimadu qofka faleebo u baahan ee dhakhtar yaala waxba ma tarto صح hadda ma garatay صح ee qofka wax dilay magta ka bixisa صح afar ninkay jaamacada ugu jiraan lacagta kama tiriso dee صح hadda ma garatay ee laakiin ka doonaya inuu salaan siyaasiya koraday ee shacabka loogu tuma waxaanu nahay ummad u afduuban dad meetiya Soomaali meel kastoo joogto haddaan ku raamika awoogaagii afraad muxuu ku fiicnaa duurku bulshada kula wax laga yaabaa inaad garanayso oonadii sheeginba laakiin kaagii 20aad baad garanaysaa taasi waxay ku tusaysaa in qof kastoo inaga mid yahay xuquuqda qof dhintay ilaalinayo qof nool la ka tagay صح awogaaga dhintay kaagama baahna inaad difaacdo iyo inaad u dagaalanto iyo inaad ku faanto inaad ducayso بس kaaga baahay صح xasanow Soomaalidu waxay u degtaa
badiga qabiilo la yasaa jira Soomaaliyeentana aad ka timid way ka jirtaa Djibouti way ka jirtaa meel kasta Soomaalidu ku nooshahay way ka jirtaa maxaa keenay baad u maraynaysaa Soomaaliya oo dhan inay isku tagto oo reer kaliya ta la yeeso si gaar ah loo yeeso waa cudur ka mid ah cudurrada jahligu wato dee hadda ma garatay ay cudurrada waaweyn dadka ku dhaca soo AIDS-ka ma maqal Sax. oo corona ma maqal sax cudurrada noocaas ah dadka ku dhaca mid ka mid ah oo qulubta kaga dhacun buu cudurkana ka mid yahay sax sidaan u yees qof ila mid ah oo ila midaba oo ila diina oo ila dhaqan oo ilaahay agtiisa inuu iga dhow yahay laga yaabo laabtan garaacaya laan dheera waraadee indhigiisu war maadaa doortay soo taan lahaa laan dheeranimada ma doortay ado diracan iyo shalmadan xirantaad lagu dooran kartaa dee laakiin cidda tahay ma dooranaysid sax sidaa darteed inanka beelaha la haybsooco ka soo jeeda xaqiisa iyo xuquuqdiisa kuma waayi karo dhalashadiisa diin hadda ma garatay Sax. waa gafafka iyo dulmiyada Soomaalida dhexdeeda ka taagan Sax. ee soonaysa marmar malaha waa loo ciqaabayaa badee waxa ciqaabtu ugu socoto halkan Ha. sax xasanow heesahaagu waa heeso fara badan teebaad ugu jeceshay heesihii aad qortay oo dhan duniyan midba ma jecli Hey. kolba ta dambaysaan jecelahay laakiin haddaan mid jecelahay Hey. taan xaaskayga u sameeyaan jecelahay oo nimcaan ku hees miya nimcaan iyo cirraba uu ku hesay sax qalbiga samrigaa ku suga maankiyo sidrigaa ku taga hankaan kugu soo hay keli waxaan ku sabaa xasuus berigaa ingiriiska ay joogtay way maqleen la socday adoo iga maqan sanadoo salkaan u dhigaa axdiga sameeye milguhu gayaan axdiga siiya xubbiga siiyaa tixgelin yaasmiin maxamed warsame xaaskayga ma sha Allah waan ka faa'iidaysanaya halkan waan ka salaamayaa iyada iyo awlaadeyda iyo ubadkayga allah barakeeyaan leeyahay aniguna waan ii ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay qoyskii isku waara hooyaday cibaado maxamed nuur faahiye liibaan xiljiid guuleedna ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حسنو Soomaalidu waxay ka midaysan tahay af laakiin afkaasi lahjado badan baa ka abuurmay adigu maxay kula tahay farqiga u dhaxeeya luqad iyo lahjad horta lahjad waa qaabka loo hadlo sax luqadina oo waxa lagu wada hadlo afka loo wada hadlo iyo dadku isku fahmaan imika luqad baynu ku wada hadlaynaa soo ma haddii صح hadi waxa laga yaabaa in lahjada ahaan reer Djibouti صح wadada yax oo kelmado fara badan oo intaan Djibouti joogay ay maxaa ka mid ah wixii ka yaabiyay lahjada Djibouti ay kamida kaali soo badaalanne waan birqaamay u jeedo aan barqaame ha hada ma garatay Hargeysa hadii la joogi lahaa soo badaalanaa maxay ahaan leedahay waan soo dabaalanaa waan soo dabaalanaa ha marka da'da iyo ba'da malaha waa lahjada keenaysa dama imika xamar sibaa looga hadlaa صح abbaay adiga si waay ma fiican tahay baa lagu oranaya hargeysana arway arwaya Djibouti waxaan ka hayay hada ma garatay marka lahjadi waa kala duwanaanshahaas ay leedahay laakiin luqadi waa waxaanu ku wada hadlano ee aynu isku fahmano ama ingiriis ha noqoto ama carabi ha noqoto ama Soomaali ha noqoto xasan wada hadalka haysta barnaamij laga sameeyay xamar oo ka daawaday YouTube-ka waxaa la iskugu yeeray suugaamaystiyada af Soomaaliga oo dhan iyo dadka culimada afka nin kamid ah dadkii hadlayay baa yiri Soomaalidu weligeedba waxay yeestaa beer dhaqatada afka Soomaaliga suugaantu ay ku qoran tahay ee maanta la wada aqoonsan yahay waa af meel kaliya tun lagaga hadlo adigoo reer Hargeysa badiga waxa la moodaa marka af Soomaali laga sheekeynay afka baynu Hargeysa ku dhashay Hargeysa ku koray Hargeysa ku kobcay Hargeysa una af Soomaaliga ay ka tahay madax arrinka maxaad ka qabtaa horta nin waliba gobolka ka soo jeedo u yaqaanaa uu afku wanaagsan yahay waxa afguri la yiraahdo iska jira صح oo Djibouti afguri bay leedahay صح Muqdisho afguri bay leedahay mudug afguri bay leedahay anigu ma oran karo af Soomaaliga xuduudtiisa iyo xaruntiisu waa halka iyo halka iyo halka صح waayo garsoore uma hideed hadda ma garatay laakiin in afka Hargeysa laga hadlaa suugaan ahaan qani yihiin manuga Djibouti baad joogtaa muddo imika bil aad joogtaa labadooda baad Djibouti ku sugan tahay waa la sii sheegay inaad imanaysid in wasiir Elias Muuse Dawaale la yiraahdo sii sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu kugu soo dhaweeyo Djibouti kugu soo marti qaado imaatinkaaga Djibouti maxaa u sababaha dalxiis un bay ahayd mise imaatin shaqeeyo horta Djibouti awal baa wariman jiray صح laakiin waxaan u jirin si shakhsi ah صح ambaano ka sii dhoofayo transit ah ambaano soo degaya ambaano sabab kale oo imaday laakiin si official ah xukuumadda isu casuuntay صح Eliasna saaxiibkeena waan salaamayaa inaan dhalinyarada la hadlo bay ahayd صح mas'uulkeygii waan akhriyay waxaan oran karayna waan idhi صح idinkaaba ka mid ah
Buuti TV صح Jabuuti هي dhalinta maanta joogta Djibouti ama Soomaaliya ama Somaliland ama Ethiopia maxaad ku dhiirigelin lahayd anagoo ku soo xidhan barnaamijka dhalinyarada Jabuuti waxaan leeyahay waa xor baad ahaydeen 40 sanadood ee ummadda ka horeeyay صح idinka dawlad haysta teknolojiyaduna imka xoog bay u socotaa dowr intee lag bay ka qaban kartaa wad malayn horumarka teknolojiyadda waxyeeladeeda haddii la iska ilaaliyo waxtarkeedana la isku ilaaliyo waa wax wanaagsan see la iskaga ilaalin karaa wad malayn dagaalada maskaxda ee dadka lagu soo qaaday qayb ka tahay marka waxyeeladeeda in la iska ilaaliyo ma lahayn صح maxaa Soomaalida uga baahan inay teknolojiyad fiican iyadoo ay yeelato Soomaalida horta aqoon ahaan ma dhisantaa ka horeysa maalin ma waxaan tagay Turkiga meel baan fadhiisto habar yar bay soo garab fadhiistay inay yar bay la soo baxday saas uu rugtiyo marka inankii ayadana buug soo qaadatay way akhriday ayeeydeeda dhanka joogan sawirtay xaaladeeda ay ku sugan tahay marka laba islaamood oo inaga ah mar Djibouti ama reer Somaliland ama reer Soomaaliya ama reer Jigjiga iyagoo toddobaad jira ay buugta kala yargisanayaan bay horta horumar lahayd qoontiina ilbaxnimadii baa kontonkii 60kii ku qarniyaal baa la soo baranay sida meel xun ma taagnin waynu dadaalana laakiin inaynu daba socono dadaalka ma aha waynu dadaalka garab socono shan shay haddii aad oran lahayd ummadda Soomaaliyeed waxay ahaan lahayd shan erey dad ku soo koobi lahayd oo dhiirigelin shan erey anu haddaan shan erey oran lahaa waxaan oran lahaa jahliga saad uga baxdaan aqoon bartade صح hadda ma garat fakhriga saad uga tagtaana tabcada hadda ma garat si aad u noqotaan dal dadka kale ka muuqdana isdhisa صح hadda ma garat si aad u yeelataan dal iyo dhul aad ku hirataan ilaashada صح hadda ma garat si aad u heshaan dhalinyaro caafimaad qabta aqoontooda dhisa xasan dhuxulaab saalax aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo inaan ku wareysto bahda Buuti TV oo isku duuban oo ku mahadnaqaynaa aan ku rajaynaynaa fan wanaagsan caafimaad cimri dherer iyo ilaahay inuu guul badan ku siiyo. Ma santaa walaal.